shirkan oo lagu soo gudbinayay natiijadii ka dhalatay kulamo dhaxdhexaadin ah oo muddooyinkanba ay wadeen qaybo ka mid ah odayaasha iyo waliba waxgaradka gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay guriga uu magaalada Garowe ka degan yahay mudane aadan maxamed ciise gaadaale oo isagu ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dawlad goboleedka Puntland. munaasabadan ayaa ugu horeyntiiba waxa ka hadlay musharaxa Axmed Siciid Ow Nuur oo isagu sheegay in uu ka tanasulay in uu ka simid ahaado musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada dawlad goboleedka Puntland. anagu waxaan gaaray inaan isu tanaasulno waxna isu qurno nin walbana maalintiisa jaaniska la siiyo oo aan lagu carqaladeyn. Soomaalida kale waxaan u rajaynaynaa waxa weeye reer Puntland inay sidaas oo kale fahmaan oo la fahmo in la tanaasulo oo wax la isla ogolaado inay tahay wax danta dadka iyo dadka ugu arrintaas marka anigu awal haddii aan musharaxnimo igu ogeydeen musharaxnimadaas waa ka tanaasulay kursigaas hoostiisa waxaan uga tanaasulay aniga iyo raggii kale oo hastaa ka tiriyaba inaan la raadino oo la doonno walaalkeen aadan maxamed ciise anigu kolley hortiina waxaan ka ballanqaadaya waxaa laalay wixii aan cod ku keeno ama aan magacayga iyo waxayga ku keene kolley nin oday oo dalka joogi baan ahay wixii tabar iyo tala aan hayay inaan ninkan odaga walaalkeen waxba ka harkan doonin idinkana waxaan idinka falaynaa taasoo kale nabadoon Dheliye oo isna ka mid ahaa xubnihii shirkaasi ka soo qayb galay ayaa ugu hambalyeeyay isla markaana u mahad celiyay mudane Axmed Siciid Ow Nuur tallaabada wanaagsaneyd ee uu ka qaaday dhinaca tanaasulaadiisa. Axmed Siciid Ow Nuur isagana waxaan u haynayaa mahad gaar ahaaneed waayo waxaan la arki jiray maalin baad arkaysaa. musharaxa aadan maxamed ciise ayaa uga mahad celiyay mudane Axmed Siciid Ow Nuur tallaabadii geesinimada lahayd ee sharafta ay ku dhahnayd ee uu kaga tanasulay musharaxnimadiisa waxaana uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay go'aan qaadashadii ahayd in uu ka tanasulay ee uu ku soo bandhigay madashii shirka oo la isugu yimid guriga aadan maxamed ciise gaadaale. Axmed Siciid Ow Nuur oo isagu horey uga mid ahaa musharaxiintii horey u shaacisay in uu u tartamayo xilka madaxtinimo ee dawlad goboleedka Puntland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uu ka tanasulay isla markaana uu la shaqeynayo aadan maxamed ciise gaadaale. Cornel Maxamuud Yuusuf Ow Nuur Xagaafe oo kulanka ka hadlay ayaa tallaabadii uu madasha ka muujiyay Axmed Siciid Ow Nuur ku tilmaamay mid geesinimo oo shariif ay ku dheehan tahay waxaana korneelka uu dhanka kale ka warbixiyay waxtarka uu aadan maxamed ciise gaadaale dalka u leeyahay. aadan maxamed ciise gaadaale uu anigu horay aan xarakan uga shaqeeyay waxyaalaha uu ku fiican yahay iyo waxyaalaha uu dalkan ku soo biirin karo iyo dadaalka ugu jiro inuu dhibaatooyinka maanta nabadgelyo la'aanta iyo lacagahan fawjarka iyo dhibaatooyinka iyo ummadahan iska horyimiyo walaalaha sidii loo dejin lahaa iyo sidii horumar loo gaarsiin lahaa. Axmed Siciidna hadda waxaan isleeyahay arrimahaas uu maanta uu ku tallaabsaday waxaan leeyahay wuxuu leeyahay taariikh uu leeyahay horeyna waa ugu waraaday ilaahay waafajiyo marka taas annaga mahad bay noo tahay inagoo mahad bay noo tahay. ugu dambeyntii nabadoon Axmed Xaaji Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa isna waxa uu ka warbixiyay sababihii uu ku yimid tanaasulkani. waxaan niri aan u tanaasulo sidaas baa tanaasulku ka yimi ka bacdina waa